marka waa inaan siyaasadda lagaga hadlin te anna waa idin ogolaa siyaasadda inaan ka hadlin laakiin de waxay iga sugaysaan warka dalka oo dhan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan dadka halkan isugu yimid ee ka soo qayb galay xafladda qalinjabidda 12aad ee jaamacadda Burco aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa ka soo qaybgalka xafladdan qiimaha weyn leh waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan ardayda qalinjabisay macallimiintooda waalidkood hooyo iyo aabbo malaha ayayda iyo awowga lama xuse hooyo aabbo awow ayeeyo iyo intii ka soo qayb qaatay oo dhan waynu mahadnaqaynaa waynu hambalyeynaa waxaynu bogaadinaynaa inuu mahadnaqaynaa aasaasayaashii jaamacadda Burco ee fikraddan keenay ee ku caloodaygay iyagana wixii dhintayna waa u ducaynaynaa kuwa nool waa u mahadnaqaynaa waxay abuureen halkaa aynu maanta joognay arkayeen 12 sano ama 16 sano ka hor inay tan oo kala qabsoonto aad baynu ugu mahadnaqaynaa kuwa dhintayna waa u ducaynaynaa ilaahay ha u naxariistay hambaryadii bogaadinta jaamacadda qolada waxbaratay waxaan uga gudbayaa anigu iyo wafdigii la socday waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gobolka Togdheer sidii weyneed ee qiimaha lahayd ay noo soo dhaweeyeen waxaan oran karaa soo dhaweyntaasi waxay ahayd mid qaran waayo nin karmeed iyo oday iyo midba ku ka ixtiraam badaa madax dhaqameed siyaasi cid waliba meel fog oo magaalada ka fog bay naga hor yimaadeen waxaan qabaa inay u muujinayeen qarannimada iyo midnimada Somaliland oo meelo badan laga ducadeeyo inay tusayeen Somaliland inay tahay markay qarannimada tahay gobol walba da walba iyo mujtamacyadooda inay ka midaysan yihiin oo qarannimada ay midaysan hirgelinteeda taasaa muujiseen odayaashii iyo dadweyne Burco naga hor yimid aad iyo aad baan ku mahadnaqaynaa qaran hadda waan ku mahadnaqaynaa halkan maanta wixii loo yimid waa la sheegay dardaaran hoga tusaale tacliintu qiimaha ay leedahay intii oo dhan baa la dhameeyey laba qodob baan xuseeyaa horta waxaan u mahadnaqayaa allaha barakeeyo gabadhii fariida hayda ardayda matalaysay dardaarankii ay soo jeedtay waa qaadan codkarnimadeeda sidii farshaxanka ahay ee u dhigtay tabashada ardayda meelay joogaanba Burco qulooba ay hadalleen dhalinyarada jaamacad kasta joogta iyo marxaladda ay marayso ee u dhigtay baahidooda sidii qurux badan farshaxanka lahaydna waanu qaadanay waanu fulinaynaa wixii dan naga reebta mooyaan waxay danteenu inaga reebta mooyaane fikir iyo xaqaad bid Allah harimayno ilaahay lakiin waynu guulaysan doono waxa kaloon yana xusayaa gudoomiyaha jaamacaddu wuxuu ku dheeraaday deegaanka iyo dhaqaalaynta deegaanka iyo iska beddelka dhacay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa sida jaamacaddiisa iyo fikirkiisu ay u mataanayeen aqoonta iyo deegaanka waana ta loo baahan yahay dowlad ahaan annagoo fikraddaa kula qabna oo ay weliba aanu haysanaa gabadh geesiyadahoo deegaanka aad u ilaalisoo ku dagaalantay oo ragga kaga wanaagsan shukri waxay soo jeedtay dowladdana ku qasabtay oo meel marisay oo baarlamaanka ka baasgaraysay oo ku dagaalantay wax alliya wax lagu kariyo hadduu gaaska wax lagu kariyo yahay hadduu gargare yahay hadduu disti yahay ma aha wax la karsado waxa wax lagu kariyo oo dhan inay dowladda bilaa cashuur ku soo degayso meel kasta ka soo degayaan labada qodob ayaga xusuus hadaladii wanaagsanaa ee halkan ka baxay halkan waxaynu ku heshiisnahay waa xaflad qalinjabadeed waa xaflad farxadeed marka waa inaan siyaasadda lagaga hadlin te anna waa idin ogolaa siyaasadda inaan ka hadlin laakiin de waxay iga sugaysaan warka dalka oo dhan adigaa dalka oo dhan dee odayehe bal dalkii ka warrab
haddaan dalkeedii ka warramo waxaan ka warramayaa oon anigu soo taabtay oon aaminsanahay oo runa qofka Somaliland ee maanta rag iyo dumar da'da uu yahayba waxaan isleeyahay maanta geeska Afrika inuu ku nool yahay Afrikada bariga joogno qofka Somalilandkii in uu maanta yahay qofka qura ee madaxa kor u taagi kara ee dhammaan u faari kara Somaliland soddonkaa sannadood keligeeda ahayd waxa ay qabsatay in ilaahay mooyaane gacan dawladnimo lagu ictiraafay aanu dallo oranay waan ku ictiraafay ama dawlad ahaan baa lacagtaa ku siiyey waxay adigu keenaan waa sadaqo oo kale meel gobolkiisa lagu tuuraa laakiin waxa qabkiinu yahay oo mustaqbalkaagu inuu fiicay ka dhax arkaysaa oo aad ku kalsoon tahay oo aanay cidina kula qabin oo ilaahayna siiyey inaynu dalkeena u dhisnay si ka dhismo wanaagsan oo ka horumarsan oo ka dheeraynaya dhammaan intaynu jaarkana hal ictiraafsan yahay caalamka taasina waa duwadaaga dadka Somaliland waa ayo dalka aan la ictiraafin ee waliba loo dardaar wariyada dagaalamaya ee dhinac walba horumarka koow ka ah mandaqada ay ku leedahay dalka intaas oo jaamacadood samaystay iyadoo oo aanay cidina maalgelin jaamacadna aanay gelin ee waliba waxa ay sameeyeen aan deyn baana inagu lahayn dawladna ugu lahayn soo ilaahay nimcadi ma hayo waxaan ku faano ilaahay ma hadnaqo niyad jabka dadka qaarkii ay sameeyaan ee warkaan Soomaaliland meel la ictiraafin miisaaniyad badan lahayn abaar ku soo noqdeen anigu taa ma arko xaqiiqadeedana waxaan u arkaa Somaliland dhibaato kasta oo dabeecadda ka hortay way ka hortagtay oo way ka badbaad horumar kastana iyada gacanteeda ku samaysatay magaalo waliba 100 jeer bay la bilaabatay qolada waayiin oo teen sameeyay master plan-ka magaalooyinka loo sameeyay labada magaalo ee mid waliba inta ay ahayd 10 sano ka hor 100 goor Lebanon ay ka weynaatay waa burciyo bowrama marka waxaan leeyahay horta dalkaas aynu nahay dhibaato kasta u babac dhiga ilaahay ka ashada cidii wax tartan u baahdaqa dhibaato walbana ka baxa mustaqbalkeenu saas u ifaya maadaama dadkeenu dunta xariirta ay yahay ee mashaakilka ka baxa maanta dalka badhawa rubay badhawa abaar bariyada ilaahay iyo dadaal banu ka bixi doonaa abaarahana mustaqbalka Soomaaliland maxaynu u eegnaa sidaynu u eegnaa horta barigii hore mustaqbalka la bariyemayna lahayn jaamaca mayna lahayn qoraal ligaala mayna lahayn laakiin waxa la oran jiray waay araga wax weydiiya marka odayaasheenu barigii hore manay qayri jirin waqti yar kuma lumin jirin waxaan macna badan lahayn xusuustooduna aad bay wanaagsanaydo odayga 89 jira waxa la xusoo maray sida kaydka loo kaydiyo kan uu ku sheegay taa waan ku jabnay ka bayd taasi waa warasada saayir taasi waa sida laakiin maanta waxaanu haysanaa jaamacado aqoon-yahano dad taariikhiyana oo wada baaray wax aliyo wixii hore loo soo maray oo inoo diyaariyay haddaba marka si guud u dulmaro abaari way soo noqdeen hawadii baa dikhowday ama xumaatay oo sidii hore iska bedeshay haddaba hadday roobka yaraaday oo xoolihii iyo daaqii inaga yaraadeen dadkiina kordhaayo maxaa inoo tala qof wal oo mutacallima qof wal oo daa waay araga waa su'aal taala waxa la taladu waa baadi qof helaya lama yaqaan ma ina yarba ma gabarba ma odayba cirale ma sheekhba waa baadi talada dadka raadi aniga waxay la tahay marka dad badan oo wareysay ee ra'yiga gobolladii dalku dhan soo ururiyay hal mustaqbal baa aad isku raacsan inuu kaga bixi karo wax hawadiis badashay waxay noo keentay nolosheenii ahayd xoolo dhaqashada inay adkaatay inay si hor u socoto marka fikirku wuxuu noqonayaa mustaqbalka dadkeena maskaxdiisa waa inuu u jeedinaa inay badda ka faa'iideystaan badda Soomaalidu way ka baqataa ma naqaano ninka xeebta joogana nin taag daran baa loo arkaa
laakiin khayraadka badda u batay jaamiciyiinta iyo researchka la samaynayo iyo aqoon-yahanka waxaan u soo jeedinayaa inaanu ka fakirro dadkeennan ama ay la yidhaahdo barakacayaasha ama dhallinyarada mustaqbalka ee shaqadoonka ah inaanu ka fikirro sidaynu u dejin lahayn xeebaha oo ay u abuuri lahaayeen nolol dhaqaalo leh oo badda ku tiirsan waxaana la ogyahay maanta adduunka oo dhammi wuxuu ula baxay badda blue economy dhaqaalaha buluuga ah oo wax walboo laga helo tallaabada ugu xigtaana waxaa weeye inaynu dhulka waxa hoostiisa ku jira la soo baxdo sidaa darteed waayeel iyo dhalinyaro waxaan leeyahay si aynu horumarkaa u gaadhno labadaasaa inoo dihine haddii roobkiiyo xoolay naga yaraadeen maskaxdeenna labadaana waxa inagu siman tahay qura ismaqalkeenna wax wada lahaanshaheenna iyo dadka inoo imanaya inay inoo yimaadaan dad tala leh dantooda ilaashanaya ka u yimidna ay si wanaagsan wax u kala heshiiskooda u gelayaan oo u kala helayaan burco waa magaaladii taariikhda halganka waa halkii somaliland laga asaasay burco isticmaalka markii la dagaalamayay waa halkii dabku ka shidmay sheekh bashiir iyo ninkii yidhi madaxa dadkan cashuurayaa lagu dilay iyo taariikho badan oo ummadda walba ku qadariso oo qiimana ayaa leedahay ragga maanta joogaana waa magaaladii raggaas dhalay inay aabaashooda mid qudaa baynu ugu ducaynaynaa haddii aan la idhaahdo burco dee magaalo walba waxbaa lagu xantaa bakhaylnimo lagu xanto kaftan iyo niyad samaan iyo haasaa wanaagsanna waa lagu majeertaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu